munaasabadan ayaa ujeedkeedu waxa uu ahaa in warbixin uu siiyo dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalkan UK gudoomiyaha bangiga IBS Xasan Axmed Yuusuf isagoo halkaas kula hadlay boqolaal qof oo Soomaaliya ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dalkan Britain. intii munaasabada socotay ayaa gudoomiyaha waxaa la weydiinayay su'aalo ku saabsan bangigan iyo qaabka loo maalgashan doono iyadoo halkaas dadka faahfaahin uu ka siiyay. dadka xafladda ka qayb galay oo ka kala yimid gobolada kala duwan ee dalkan Britain ayaa u suurta gashay in su'aalo ay weydiiyaan agaasimaha guud ee bangiga. su'aalaha ayaa badankooda ku salaysnaa qaabka bangigaas akoon looga furan karo iyo hanaanka lacag dirista u sahli karta in qof halkan jooga uu helkiisa ku nool gudaha Soomaaliya uu lacag u diro. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin martida sharafta leh ee aan u qaban inaan ku soo dhaweyno bangiga IBS International Bank of Somalia oo maanta marti inuu ku yahay gudoomiyihii bangiga Mr. Xasan Axmed Yuusuf oo loogu yimid dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho. ku soo dhawaada xafladan lagu daahfurayo marka International Bank of Somalia qabar wanaagsan oo furfuran nala ku siinayo insha Allah. International Bank of Somalia muxuu yahay, muxuu qabtaa, muxuu noo tari karaa, muxuu noo faa'iideyn karaa. aniga shakhsi sabriye waxay la tahay advantage noo tahay dadkeenan ku daahay qurbaha oo anigaba koowan ka ahay. waxa ganacsiga la yiraahdo oo waxa ummaddu ku xorowdo ama ummaddu ku horumarto. ganacsiga waxa isagana aabbo ah inuu bank helo, inuu investment helo, in wax daba jooga oo waxa barnaamijkaas iyo dadka mufakiriinta ah ee wax alifaya wuxuuda iyo dreamskooda suurta galiyo rumeeya. anigoo magaalada Bristol Councillor ka ah waxaan leeyahay ahlan wa sahlan soo dhawaada noo soo noqda nala soo socodsiiya marba insha Allah International Bank of Somalia meeshu marayo annaguna waxaan idinku taageeri karno waan idinku taageerana waayo sumcadeena ayaa ku wada siman markaa waad mahadsantihiin. aad baan uga mahad celinayaa Mr. Cilmi iyo dadkii la shaqeeyay dhammaan soo qaban qaabiyay barnaamijkan. International Bank of Somalia saa ka warqabtaanba Soomaaliya dawladdu u dambeysay burburtay 1991kii adduunyada civil war ka dhacaa way dagaalamaan dadku istilaan laakiin Soomaaliya civil war oo kaliya kama dhicin systemka ka baaba'ay. bilaabida la bilaabay IBS wuxuu markaa jawaab ka yahay inuu gaabka uu buuxiyo in la helo institution ku saleysan international standard caalamkiisa oo la raacayo. institution kaas oo institution fiican oo financial institution noqonaya la talaabsanaya caalamka hadda sidoo wax u dhaqmo iyo sidoo wax u gado kadibna dadka Soomaaliyeed u horseedeen istaanka fiican ayaguna ay qaataan ama ay ka bartaan ama ay horseedaan. jawaabtaas isaga laga bixinayo baa IBS la sameeyay. marka la yiraahdo International Bank maxaan u jeednaa wuxuu IBS ku shaqeeyaa oo dhan sharcigiisa waa international ku kusoo bilskarey ayuu ku saleysan yahay. inta laga isticmaalo bangiyada halkan yaqaan hadii Barclays Bank aan leedahay mid kale ahaan lahayd waxa weeye sida uu shaqeeyo kan uu shaqeeyasna. bangiyada Soomaaliya ayaa imika u muuqanaya inay ka hirgalayaan waxaana tan ay qayb ka tahay hanaanka nabadda ee ka hirqaaday magaalada Muqdisho. dhowr bangiyo ayaa ka furan dalka Soomaaliya waxaana bangigan uu sheegay inuu qayb weyn ka qaatay arrimaha horumarinta bulshada sida beeralayda iyo kalluumaysatada iyadoo ay jiraan hanaan lagu bixiyo cagafcagafyada oo qaab deyma kaas oo aan saarnayn interest ama ribo kaas oo dadku ay aad u soo dhaweeyeen. Maxamed Maxamuud Dhoore SNTV Bristol.